السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب خالقة آديات بهذه السلام يا ولكن هبي أو إذن الله هبين ونكسن عبد وحين الله يها قصة وحن إذن سيدا آديات أمرق بدن إنتان قصة وجود قرن أصحاب الجنال كعصب وحن الله يهاي فضلا كم نقو أصحابك وحرن يوتيوب channel كيجا بليز سبسكرايب صار دمبلالك ريح ساعد ونقطه داوديه وجوري isku soo naqad wanaagsan asxaabta qaaliga ah mar kale iyo walaalkiin happy oo idin sido qiso waliba aad iyo aad u murugo badan asxaabta qaaliga ah waxaan jeclaystay in aad qisada soo daawataan kadib aan isu soo noqono wiilkan idin muuqda walaalayaal waa wiil aan waxba haysan waxaana hayo haraad halkan aad u jeedaan waxa uu ka soo doonto walaalayaal biyo laakiin nasiib daro wuu ka waayay biyihii wuxuuna iska fariistay halkiisii asagoo halkaas fadhiyo ayaa agtiisa waxaa soo maray nin qani ah yacni nin ilaahay wax siiyey waxa uuna gacantii ku wataa biyo watar yar ku jira ninkii taajirka ahaa markuu u soo dhawaaday wiilkii miskiinka ahaa weliba haraadka hayay wiilkii miskiinka ahaa waxa uu arkay ninkan caaga wato weliba taajirka ah biyahana wato ayuu arkay markaasuu soo istaagay wuxuuna soo dabagalay ninkii lacagta lahaa asaga wax kale u baahan yahay ma jirto aanan ahayn walaalayaal kaliya biyaha uu gacanta ku hayo wuu u yimid markaasuu ku yidhi waxaan u baahanahay biyaan cabo oon ayaa zaa'id ii hayo ee biyaan cabo isii markaasuu kor iyo hoos inuu u fiiriyo wuxuu ku yidhi war naga tag biyaad cabta kuuma haynee haddana wuu ka daba imaaday walaalayaal wuxuu ku yidhi biyo isii ninkii kibirka badnaa wuu kala tuuray wuuna ka tegay walaalayaal war adigu haddaad wax haysato maahan inaad isla weynaato war ma ogid miyaa waxaad had haysato ilaahay inuu hal daqiiqa iska daaya hal mirir inuu kaaga qaadi karo kaaga naqin karo war adduunyadan siday u wareegataba maalin bay kugu imaan doontaa ha isku dayin marnaba inaad isla weynaato walaal maalintii xigtay maxaa dhacay asxaabay ninkii isla meeshiisii ama positionkiisii ayuu fadhiyay walaalayaal waxaa halkii haddana soo maray ninkii taajirka ahaa oo ka imaaday shaqadiisii furihii gaariga ayaa ka dhacay soo qaba intuu islahaa ayaa haddana waxaa ka sii dhacay taleefankiisii adduunyadan walaalayaal waxaa laysku dhaafay qalbi wanaagga wiilkan waxba ma haysto maal uu haysta ma jirto laakiin waxa uu ilaahay siiyey qalbi aad iyo aad wanaagsan moobeelkii ka dhacay ayuu arkay wuuna soo qabtay walaalayaal siduu u waday wuxuu ka dabageeyey moobeelkii ninkii laakiin muxuu sameeyey dulliga wuu kala tuuray gaarigiisana ayuu iska galay war wax looga baahan yahay ma jirto xoolo uu leeyahay ayaa loo wadaa asagana iimaankii ayuu ka kacay in wax looga baahan yahay ayuu moodaa wiilkii taleefankii ayuu u keenay wuxuu ku yidhi taleefankaana ka soo tagtay wuuna kaa soo dhacay markaasuu dhahay nasii taleefankee naga tag weliba uma uusan mahad celin wiilkii wuu yaabay wuuna ka tegey wuxuu la yaabay isla weynida intaan la eg oo ninkan qabo ninkii isla weynaa markuu ka soo tegay wiilkii waxyar marka uu socday ayaa gaarigii ka damay waxa uuna fiiriyey ciladda gaariga meesha laga haysto markuu gaarigii fiiriyey meel walba ka fiiriyey ayuu ogaaday gaarigii inuu u baahan yahay in la riixo yacnii walaalayaal asagii ninkii isla weynaa ayaa maanta waxa uu u baahday qof garab siiyo asaga yacnii gaarigaas qof u riixo siduu u raadinayay kolba qof walba u wacayay xitaa waxa uu istaagay laamigii si baabuurta kale dadka wadaayo uu ka soo dejiyo oo dhaho gaarigan halay la qabto xoogaan u baahannahay war adiga haddaad isleedahay aad aaminsan tahay aniga oo keliya ayaa la ii soo baahanaa aniga qof uma baahanayay adduunyada waa sidan maalin ayaad u baahanaysaa adiga qof bini'aadana haddii qof waliba aad iskala weynaato
waxaad ogaataa adiguna inay qof waliba iska kaala weynaanayso haddii laga reebo dadka qaar sida wiilkan oo kale qalbiga wanaagsan. wiilkii maskiinka ahaa waxa uu arkay inuu dhiban yahay ninkii kibirka badnaa, laakiin wuu ka roonaaday oo wuxuu sameeyey wuu u tagay, wuxuuna dareemay inuu garab u baahan yahay, wuuna u tagay garabkiina ayuu siiyey. wanaagga waa loo kala dhashaa, qalbi wanaagsanaantana waa loo kala dhashaa. wiilkan dhibaato fara badan iyo broblem fara badan oo kala kulmay ninkan ma uusan fiirin, ee waxa uu fiiriyey xaaladda maanta la joogo oo la taagan yahay iyo dhibka haysto walaalkiisa. kadib waxa uu caawiyey walaalkiisa. hadduu asagana dhihi lahaa ka warama shalay biyo ayuu ii diiday weliba annagoo u baahan, maanta sideen garab u siiyaa? wax hagaagi lahaa ma jirto. qof waliba hadduu sidaas ku fikiri lahaa wallaahi alcadiim inay waxba hagaagi lahayn. wiilkii qalbiga wanaagsanaa sidaas ayuu ku caawiyey wiilkii kibirka badnaa. okay asxaabta qaaliga ah, sidan filayo qisada waad dhammaysatay, weliba aad iyo aad ayaad uga heshay. fadlan haddaad ka heshay si aan u dareemo fideoga like saar. walaalkaaga inaad u naxariisato waay, xaalad walbuu ku sugan yahay. ma sax baa sidan inuu yeelo? walaalayaal wuxuu ku yidhi biyo isii, ninkii kibirka badnaa wuu kala tuuray. waa maya, xaqiiq way jiraan asxaabta qaaligaa dad noocaan oo kale, dad sidaan iskula weyn iyo weliba si ka daran. wallaahi way jiraan asxaabta qaaliga ah. isla weyniga anagoo bini aadan iska daa, allihiina untay ayaa aad u nacab isla weynida. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay asxaabta qaaliga daawashada aad daawateen fideoga. waxaan idinka codsan lahaa inaad fideoga like saarto, haddaad ku cusub tahay janaalka ha ka iloobin inaad subscribe saarto, commenti ka soo bixi fideoga share garayna. su-aal ayaan cawada wataa asxaabta qaaliga ah, maxaad ku jeclaateen qisooyinka? su-aasha jawaabteeda inaan hoos ka arka ayaan rajeynayaa.